سنترada sharafta badan hawlwadanada aqalka dhamaantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ku faraxsanahay mar labaad inaan hortiina imaado mudanayaal marweyn sanatarada sharafta badan maanta waa maalin weyn oo aan dhidibada u taagnay tiir kamida tiirarka ay ku dhisan tahay dawladnimada oo ah ansixinta sharcigan ay ku dhismi doonto hay'adda nabad sugidda ee dowladda qaranka waxa guul u soo hoyatay golahan waxa guul u soo hoyatay qorshaha dib u dhiska dawladnimada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo maanta haysta hay'ad ku dhisan sharci kaasi oo ilaalinaya xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed mudanayaal iyo marweyn sanatarada sharafta badan waxaan soo dhaweynayaa oo aadna ugu faraxsanahay doodii qiimaha badneed ee dhex martay muddadii aad ka doodaysay sharcigan oo sanatar kastaana u cabirayay fikirkiisa sidii bulshada uu matalayo uga ilaalin lahaa in sharciyada golaha maraya aanay noqon kuwa dhibaato loogu geysto shacabka uu matalayo runtii waxay ahayd dood caafimaad qabta kala duwanaanshuhuna wuxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda waana horumar aad anigu ammaanayn mudanayaal waxaan aad uga mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen sharcigan waana sharcigii ugu horreeyay hay'addu yeelato muddo 53 sano kadib ammaanta waxaa iska leh golihiina sharafta badan waxaad dhaxal uga taagteen da'yarta soo korayso oo idinku xasuusan doona sharcigan wasaaradda amniga gudaha waxay idin ballan qaadaysaa inay si dhow ula shaqayn doonto golahan sharafta badan waxaan mar labaad idinka mahadcelinayaa guusha aan gaarnay dhammaanteen golayaasha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudidii u xil saarnayd sharcigan oo gudida gaashaandhigga iyo amniga oo runtii markasta noo wacaysay marka ay qodobkii wax fahmi weydaan aan sharci yaqaanada u keenaynay oo juhdi badan geliyay sidii hortiina u keeni lahayd aad baan uga mahadcelinayaa marar badan waxaan raaligelin ka bixinayaa hortiina wax kastoo gaboodfal ah oo hay'adda magaca hore loogu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed ee dhibta loogu geystay magaca hay'addan raaligelin ayay ka bixinaysaa wasaaraddu waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh